بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين nin macallina oo arday lahaa iskuulna dhigayay ayaa mid kamid ah ardaydiisii marti qaaday wuxuuna ku yiri aabba maanta ku marti qaaday macallin waa guriga nagu kaalay macallinkii de ardaygiisii ma diidi karayo wuuna ogolaaday wuxuuna ku yiri namari aynu gurigiis ku raacno jidka markuu sii socday ayaa ala kuma samadiiday ardayba ka soo horbaxday kale garanaysay ardaygan iyo xaafadooda iyo dhaqan ka jira markaasuu waxay ku dhahay macallin xaafadan waa xaafad xagga bakhayltinimada xagga sare gaadh xaafad waxa loo yaqaano loo tegi karana ma ah ina xaafadaas kadiisa ku fiicnayd macallinkii ku adkaystay maadaama ardaygiisii uu sharfayo qalbigiisa uu dhowrayo xaafadii buu tageen odaygii baa soo dhaweeyey markay fadhiisteen ba waxa loo soo dhigay waxoogaa in yaroo muxuu ahaa galaya ama faraacad la cunaa iyo in yaroo caana loo soo dhigay markaasuu yidhi cuntadan muxuu uga jeedaa ninkani ma intaan ku siinaya isagoo yar iyo aabana baashi yarda darsanaya ayay saanta albaabka soo gargaraacday waxay ku tiri digaaga miyaan soo geliya digaagada miyaan soo geliya markaa ninku hoos ka farxo wallahi ma sha Allah asha digaag fiican baa la cunaya waa la dhargaya markaas odaygu wuxuu ku yiri may odaygu guriga iska lahaa weeyaan hoostu ka yarnahay wuxuu sii waan gaashasan tahay wuxuu ku yiri daa iska caadiye haddii soo gelaysan dhimala waan ku yar dhinac wadana yaxbu ku yiri adoo odaygu ku adkaysto saa inta intuu ugu adkeeyay ayuu ku yiri iska daa muxuu ahaa hadhowbay soo gelin wixii iska cunay markuu in badan wixii ka dhargay wax loo yaqaan galeedo in badan cunay caano cabi oo hadka daal iyo malal iyo cunto ka sabrayba digaagi ayaa tamar laba soo garacay saanti waxay ku tiri ma soo geliya digaag odaygu wuxuu ku dhahaa soo geli uu farxo wuxuu sinii malaha digaag ba isagoo dan ka sheegsan xigad gelin doonto oo dharagtay ayaa meesha waa digaagad caadiya oo loogu tala galay in ala kuma sabadiide ay cunto galeeda taataatay cunto oo gurigan ba joogta oo cunto dadaatay cunto macallinkii daafa kala tagay waxa loo xidhaa garan waayay isagoo yaabo meesha ka soo baxay halka waxaynu ka qaadanaynaa waxan bakhayltinimada dhaa wala isqabadsiiya carabtu waxay tiraahdaa rabbiga ama adiga xaafadda iska leh hadduu dufka garaacayo ehelkiisana maxaad ka rajaynaysaa hadduu adiga xaafaddu yahay qof yani gacantii go'daya oo daran xaafaddan maxaa laga rajaynaya inay la wada mid noqdaan sidaa darteed gacanta bixinta waa la baraa intaad yar tahay iyo inta yaraad hayso haddaad jeebka gacanta gelinteeda aad barato hadhowna ku fududaanaysaa aad u wanaagsantii salaamu calaykum waraxmatullahi